in ku dhow 150 gaadiid oo ah nooca xamuulka qaada ayaa laba toddobaad ku xaniban degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo ku sii jeeday deegaano dhowr ah oo dhaca galbeedka koonfurta Soomaaliya waxa ayna sheegeen in caqabado ay ku xanibiin ay tahay inay soo bateen jidgooyin hor leh oo soo dhigay inta u dhaxaysa degmada Afgooye iyo degmada Walaweyn hadaba gaadiidleyda oo arintaas sharaxaya ayaa yiri wadada dheer oo Afgooye ka bilaabata ku dhamaata magaalada la yiraa yaqbari weyn naf iyo maal waa mari weynay maxaa wadadaas dhibaato weyn baa xanaaqsan naf iyo maalaha ka dhacday dadka waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dhibaato aan dhicin iyo naf iyo maalaha nagu qabatay waxaan ka cabanaynaa dawladda federaalka inay wax ka qabato waxaanu cabanaynaa dawladda koonfur galbeed inay wax ka qabato waxa ka cabanaysaan oo idin dhaxayo in cabanaynaa niman la yiraa magafi amnilaan dil magafina macnay bad magafna waa ku macnaynaa waa niman duurka ku jira oo qoryo heesta oo tuuta heesta haddii xaw ay sheeg waxa Afgooye ka xageeyay xamaram gaadiid ka soo rarnaa doonka ma dhaafi karno nabadgelyaduna Afgooye ku egtaa Afgooye daan seexana waa nabad meel u dhaafna ma naqaan badeecadan waxa u socotaa bay bakool gado jubooyinka mana u gudbi karno waxa dhibaato ka taaganta warmaxan tasxiile iyo aqbar weyne leego baladoogle meel dhaanta ma lahan magaf waxaan ku aqoon ilmaha yar ko tahriibo inuu jidku istaago magaf xamar oo ka dhashay waxaan ka cabanaynaa dawladda Soomaaliya iyo dadka ay qosaysay wasaaradda gaashaandhigga qof walba ay qosayso jidkan inuu wax ka dhaho haddii uu wax ka dhiibo muddo 2 maalmood gudahooda badeecadan waxa uu celinayna xamar dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose mudane Cumar Maxamuud Cilmi Carabay oo gaaray goobta gaadiidka ay ku xayiran yihiin ayaa waxa uu cod dheer ugu diray dawladda dhexe ee Soomaaliya in lama huraan ay tahay in cabashada shacabka wax laga qabto shacabka Soomaaliyeed socdaan sida Gedo Bakool Bay iyo gobollo kala badan oo kala duwan ama degmooyin kala duwan oo socdaan sida wararkan ku hayno amba ganacsada baabuurta rarta qaarkood iyo gaadiidka iska loo waxay noo xaqiijiyeen in sixir barar baahsan oo ka dilaacay goboladaas sababtuna ay tahay in wada loo maraa ay mudaanta tan ay saarteen u xiran tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida wasaaradda gaashaandhigga taliyaha xoogga iyo ammaanduulaha xoogga Mr. Odawaay oo waliba mar dhow loo magacaabay inay isbedel ka keenaan bulshada Soomaaliyeed nuu adeegaan waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa 24 saac soo socda in wadadaas wax laga qabto Cabdi Fataax Ali Umar Tawakkal wararka telefishinka caalamiga koonfur galbeed Shabeellaha Hoose